marka wacyiga dadka aan kordhino qabkoodii aan kor u qaadno wadaniyadoodii aan kor u qaadno waa dhab ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeye qabka hoos u dhacaa oo dadku kalsoonida ka lunta mar waxa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dawladda Hiblaya qaadanaysa war adiga hadaa noo sheegay dadka loo qaadanaya adaa noole adigu hadaa isdiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalka dal fiican weyn laakiin hadaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanaya markaas dhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof Soomaali meel ku nool yahay darkiis lama qaadan waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shay adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo wareejisano waliba waa jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo wareejisano dalkeena dal kale malihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanayna qof walba waqtigiisa dhaafayna ma jiro marka niyada khayr u sheega in malaqi karta malaha dacar Soomaaliya dacar waa isku dayay meeqasana isku dayay dadkii naga horeeyay waxba garanayeen oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo wadamadii anaga Afrika ugu horeeyay xorriyad qaataana Soomaali laguma soo dhaco dadkiina kor u qaada kalsoonida kor u qaada hadii ay jireen madax aad shaki ka qabtaan walaa shaki naga qabina anaga ka hor dhimanayna anaga diyaar u ah inaan ka hor dhimanno laakiin hanaga harino hanaga bixino dagaalka